السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاشي نفس أبتدون وحربا إن نكدبجي أبديتك وجودن بي شركة أمباسيف سيدا وجايدين بمعلنة الشرط أهيد وحالة صوفة الصحي OESكي أما أمباسيف إيكو سيستم كاسو رنتي آد وعجائب أو قرح بدن لجسو إنتجريت جري أما لسود حجليي عبابكي دن أو شركة دا سيدي أو كونكتجي أو تراكر أو نت أو تريم أو محلي هذا ميل دمانتود لكن هذا وحا أكتفا أو كونكتي إن شاء الله تعالى إنتجريشن واسعدا مالين بميت أيال أكتف جرين دونا halkaas ayaana dhammaantood laga wada geli doonaa runtii abka markaasaa u fiiriso hadday noqoto ma aragtay news update-ka haddaad fiiriso ma aragtay qaybta userska dhammaantood waa wax amazing oonan weligay aan hore u arkin runtii qof kasta oo soo dowlad garaystayna uu ka mahadinayaa waxaa kale oo update-ka ka mid ah CEO-geena arbacadii marka uu 360 imaaday ash waxa uu sheegay dhowr waxyaalood oo runtii aad iyo aad u muhiim ah waxa ka mid ah waxa loo yaqaan in-house oo ah shirkadu maalin dhaweydna waa idin la share gareeyay si hordhaca in shirkada Ombasif ay ma aragtay payment processor ayaga ma aragtay ay maamulaan ma aragtay ayaga bangi system kaarki wax walba ayagu ay maamulayaan inay soo wadaan oo waxa weeyaan laga maarmi doono waxaan third party-ga loo yaqaano ama qoladan kale ee ganacsiga banaanka ka ah oo la isticmaalayo marka ma sha Allah tabarakallah arintaasna waa arin lagu farxo oo aan rajeynayo dadkayga Soomaaliyeed dhamaantood inay lahaadaan degenaansho iyo sugitaan ay ku sugaan fursadaasay toole waxa kale oo CEO-geena ash uu sheegay data center in ay ma aragta hadda data center-ka ay isticmaalaan ay tahay mid yar oo waxa weeyaan aan waxa ay doonayaan ama hadafka lala doonayo Ombasif aan ku wada filayn hadda data center-ka ay isticmaalaan ee yar ayaga iskale laakiin data center-ka adduunka u weynaa inay soo wadaan horena sanadii barka hor uu noola sheergareeyay inay data center-kaasi ay almost 2 sano dhisitaankeeda hadda lagu jiray xiliyadii gabagabadana ay taagan tahay oo mar dhow waxa weeyaan data center-ka ugu weyn adduunka oo Ombasif ay maamulayso ayaguna ay ma aragtay isticmaalayaan oo aysan u baahnayn qolo kale oo banaanka ka timaaday inay markaas maaragtay wax ka soo isticmaalaan ama third party iyo rafaad dambe ay kaga maarmayaan marka qoladaasna arintaasna wuu ka hadlay CEO-geena ash wuxuu kale oo runtii ka hadlay dhinaca processorski paymentigii in ma aragtay ay go'aansadeen in haddii ilaahay yiraahdo maalmaha soo socda processors iyo systemkii ayaga ay dhisteen in ay isticmaali doonaan lagana raysan doono third party iyo meelaha kale marka walaalayaal waxyaalaha ugu muhiimsanaa oo kala ka hadlo waxa ka mid ahayd in uu xoog uga sheekeeyo taariikhda Ombasif sidii ay soo martay waxyaalihii la soo maray qaabkii markii hore fikirku ahaa qaabkii uu bedelmay iyo wax la mid ah iyo caqabadihii laftirkooda waxa weeyaan CEO-geena ash waxyaalaha uu transparent-ga ku yahay waxa ka mid ah inuu wax walba runta ka sheego xitaa haddii ma aragtay dhib iyo culaysyo la kulmaan si toos ayuu noola sheer gareeyaa ma sha Allah waa qof muslina waa qof ma aragtay runtii aad iyo aad transparent u ah oo aan jeclayn wax qarinta iyo wax isdabamarinta waxyaalaha kale oo ka hadlo waxa ka mid ahayd inuu xoog u dhiirigeliyay shirkadaha wuxuu yiri dhan waxaynu sameynay one single sign on wax la yiraahdo one single sign on waxa weeyaan appkan ecosystem-ka oo hadda ay keeneen hal meel ayaad ka gelaysaa ganacsigaaga dhan albaabkaas hal mar haddaad soo gasho oo emailkaaga iyo passwordkaaga geliso inta shirkadood ama inta producti oo adigu aad subscribe garaysato oo mid walba shirkada u taagan yahay inta service shirkadu leedahay wax kasta oo dhaqdhaqaaqa halkaas meel ayaad ka gelaysaa marka wuxuu yiri single sign on ka anagu sameynay oo 5 sano iyo muddada barka ku dhow aan gelinay way sameyn karaan shirkad walba cid kastana way sameyn kartaa waana ku dhiirigelinaya inay sameeyaan laakiin ma sameyn karaan inay ma aragtay human centered macnaha bini'aadanimada inay ka dhexdhexaad uga dhigaan ama qalbigooda ay ka buuxdo in ma aragtay ay bini'aadanimo
ay u qabanayaan waxaas ama ay si daacad u qabanayaan haddii wuxuu yiri ganacsi walba aad u approach garayso only dhaqaala ka hela ma shilin ka soo daf horumar laguma gaaro waana waxa dadkayga Soomaaliyeed aan maalin walba uga digo oo inta u taaganahay aniga leaderska kalaba walaal lacag hadduu fikirkaagu kaliya yahay meel gaari mayside waxa yara sug oo waxa weeyaan fikirkan waa fikir culus waa wax haddii aad fahmi lahayd waxa la yiri dameerku baa la yiri hadduu ogaan lahaa malabka ku raran dee miyuu iska wadi lahaa malabkaas waa maya marka dadkaygii waxaan u malaynayaa inay noqdeen malabka dameerkii sidee malabka marka walaal ha noqonin taas haddii aad founder tahay iyo haddaad reseller tahayba just account-kaaga active garayso waxa dhacana indhaha ka daawo adiga ayaa ka mahadin doona noogana mahad celin doona waxaan rajaynayaa qof walba oo barnaamijkaas Umbasif ka soo mid noqday maalin aan maanta ahayn inuu inoo ducayn doono sababtoo ah markuu fahmo dad yar oo aad u kooban ayaa wali barnaamijka fahmay oo resellers ama founders inta kale wali way dhag xiran yihiin marka waxaan rajaynayaa dhagahaaga inaad furto barnaamijkan kaliya productigaaga subscribe garayso oo connecti engage ahow insha Allah waxa hadda abkii maadaama uu yimid waxa inoogu xiga waa oo verified oo maalmaha soo socda asagana ama maaragtay KYC-gi inaan samayno qofku is cadeynaya sharcigiisa gelinayay kadibna saas ay shaqadu ku bilaabanaysaa marka walaalayaal sidoo kale CEO-geena Ash waxyaalaha uu magac dhabay ama magac baabay waxa kamid ahaa in wax la yiraahdo reset bottom we my buu yiri bottomka inaan marka la taabano taas oo macnaheedu yahay oo connect maadaama 3 bilood subscription la samaystay caqabada jira dartoodna aan maaragtay hawshii loo dhameystirin in dib loo siin doono dadka 3 bilood oo kale oo maxaa la yiraahdaa reset bottom lagu sameyn doono marka walaal wax walba way soo socdaan u caga dhig Umbasif siina waqtiga loogu talagalay guuliga gobonimo idin rajeynaya iyo in laga faa'iideysto Umbasif. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.